مسؤولين كترسم maamulka koonfur urse iyo ku qeyb galeen madalka afaftigay xarunta caafimaadka ee tayo magaalada Baydhabo oo kumad ah xarumo caafimaadka oo gooniga Lingley Ilyas Abdulatif Sheikh Yusuf oo ay agaasimaaga xarunta isbitaalka tayo ee magaalada Baydhabo marusu ku hadalay afaftiga xaruntaasi ya sheegay in jidheer iyo hangmareen sidii la hirgelin lahaay in la helo xarun caafimaad oo awoodi aqoon bale oo bulshadana ku xaqab tiraasa waliba la xiriir caafimaadka maxaa hadda ku soo beegay ama maxaa keenay in isbitaalkan aan furno sida dad badan ay og yihiin waxa jirtay 2009 ayaan isbitaalka tayo Baydhabo ka furay 2 sano ayaan anagu markaas ka jawaabaynay baahi aad u daran oo taalay magaalada Baydhabo oo waxa ka shaqeynaya isbitaalka weyn oo aan oolin wax bukaanka diagnosis ama tashkhiis ama ina garato xanuunka hayo ugu saacidayo aysan jirin ayaan Baydhabo ka shaqeynayay computer ama ultrasound ma oolin isbitaalka weyn baaritaanna ma oolin daawo fiican ma oolin dadkii waxay naga dalbadeen inaan u sameeyno baahiyahaas oo aan daboolo ilaahay waa noo waafajiyay waxaan furnay ciyaada laga helayo serviceyadaas oo dhan muddo 2 sano ah shaqeynay 2 sano markaa shaqeynay aniga waxa ay soo baxday waxbarasho dibadda ah ama takhasus inaan aado marka waagaas waxa la yiriniyo maynin ku tabt isbitaalka waxaan ahaa dhakhtar kaliya oo gobolka joogay niyo waxa u baxaysaa wax aqoonka ama maqna dadkii waa ku baahan yihiin laakiin waxaan u sheegay inaan aqoon kororsi u baxayo aqoonteeda soo kororsado laakiin waxaan ballan qaaday inaan soo laabanayo marka alxamdulillah maanta ilaahay wuxuu noo suurtageliyay inaan ballankii aan ka qaadnay dadka aan maanta ka soo baxnay oo isbitaalkii maanta uu noo furmay hadii ilaahay idmo gudoomiyaha maamulka gobolka iyo naykan degmada Baydhabo yayoona ku hadaleen goobta waana sheegeen in la baahanyi adeeg caafimaad oo tayo leh oo meelo ku saaro kora baahada caafimaad oo bulshada geeka haysata sida qalabka iyo daawada ba isbitaalka may buuha dabcan adeeg badan may buuha yeelan baahanay oo meelo kala baahjari marka insha Allah adeegyadaas may buuha in si fudud oo fudud insha Allah may buuha rajaan isbitaalkan ilaahay min ku tooganahay qomay boo gudon kuwada may boo faa'iisto oo ma raayso ko amaanta smudaysin ilaahay ku insha Allah ilaahay si mutugan dadkii oo ma raayso inta dibdo bahan wala bardan aqoontiyo ma laha kalna galeen meeliyo ka dhalan boo taasnay boo hambari guud may boo hayan dire si hay'adda wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ee wasiirka ammaanka oo dhawaan laha magacaawi wasiir Isaaq Al-Subug iyo usuuna sheegay muhiimadda iyo leeyahay xarumo caafimaadka oo gaarka Lingley oo waana sheegay in isku dardaaramo doono agaasimaaga caafimaadka ee wasaaradda in xarumo gaarka Lingley iyo saami kwal dadaan deego agabka iyo daawada oo hadeerayaan wasaaradda si oo ka dhiideen ana aaminay intii Baydhabo kooyan ka shaqeeyaan iyada yoona ma siin abaalna ku hayno دكتور إلياس مثلاً دكتور طلبكي أرجني سؤالك على إذا تيس فعلت بيلنا ضافت دي هذا فعلت ما يبغى دخاتير فعلنشانتي مثلاً بدون إذاك معناها بريورة اللي يصير بيصير بريورة اللي يصير وفقع في مادي وفقع دي جديد سينشانة هل داوي هذا بيصير لعنين هاد ما ضيف فيها وضع طواف وضوء سين الروي بيصير كده لكن قرر الأرناء مكده ويان أضرب بيسنديم داود المريسيو كدولة بيسا وبعض دي هذا ما سنتين ما يفضيه معناها ما إنك الصور جيل إنتين وزارة عفمات كثير روجو إلا إن هذا عفمات سفينه وبرضه كل إساتي سبور قبطان إسبدل لدي ما يبغى ما يقدر يجلي هذا اسمه جو تنتقل بتوم بريبت كه نقدر يجلي ولا يقلبه عن هاي سنة ولا هاي نوع لكعاوي لسي انت على تكون تندر كجرفه دي اسبوع هي سنه فدي ميلو انت اسبال بري بدل ريل ديني ايسيو هل كلمه يون سيو دد قيبير معناها مي بو دجاج غريان في يو قادين
eedeeda maastintiin wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa bilaawtay in iyada dhiirigelida xarumo caafimaadka oo gooniga dhinleeyay taasoo ay kumada Tayo Hospital oo hay'adda xarunta geeka la afaftigay xarunta caafimaadka ee Tayo iyama banagada doonta tii bulshada ku nool magaalada Baydhabo iyo Baaloshe iyo markaasay anfacdo waana ku daboola baahiyaalka masqarshaadka ku bahay inuu caafimaad weydiisadaan dalka banaanshay Faarax Xuseen Xaaji weero video aftahan Baydhabo Janaay